waxkabara.net waa mareeg caalami ah oo ardayda Soomaaliyeed ay ka heli karaan tacliin la xiriirta tiknoolajiyadda. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax ku bartay dalka Mareykanka ayaa hirgeliyay website-kan oo si sahlan loogu baran karo macluumaad la xiriira kombiyuutarada. Maxamuud Axmed Xaaji oo ah aasaasaha website-kan waxkabara.net ayaa sharaxaya sida ay ardayda Soomaaliyeed ay ugu faa'iideysan karaan. website-kan taariikh ahaan horta waxaa la aasaasay 2014 ayaa taariikh ahaan la aasaasay ama fikir ahaan. markaas wixii ka dambeeyay tartiib ayuu isaga soo socday. koorsooyin yar ayuu ku bilowday oo YouTube-ka iyo Facebook-ka la soo gelin jiray oo aad iyo aad macnaha taya ahaan hadda sida oo jooga uga liitay xilligaas duruufo jira awgood. muddo kadib wuxuu isku bedelay in aan soo geliyo koorsooyin gaagaaban oo mataqaanaa oo website isku xiran at least oo casharada ka duwan. markii wixii ka dambeeyay 2017 markuu ahay ayaan waxaas dhahay waqtiguna wuu socdaa, adin inaad wax qabatid waa rabtaa, dadkuna way ku fadhiyaane maxaa xale. markaasaan waxaan bilaabay inaan juhdi badan geliyo. horumaro dhinaca tiknoolajiyadda oo sanadihii ugu dambeeyay la gaaray ayaa suuro gelisay in ardayda haysata internetka oo kaliya ay si sahlan wax ugu baran karaan website-yada dhinaca tiknoolajiyadda. Maxamed Barwani oo ah gudoomiyaha horumarinta dhalinyarada ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadan lagu soo bandhigay shabakada dhinaca tacliinta ee qusaysa kombiyuutarada. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan goobjoog ka ahay markhaatina ka ahay munaasabadan lagu daahfuraayo website-ka waxkabara.net oo runtii wax badan aan ka garanayo aniga si online ah. engineer-kana aan ka wada xiriiri jirnay ama aan ka arki jiray kala socday casharadiisa online-ka, laakiin maanta inaan goobjoog u ahay Muqdisho. Ismaaciil Xirsi Xasan aasaasaha hay'adda Hirgal Group ayaa ugu dambeyn ka hadlay munaasabadan. waxa uu sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay haystaan fursad ay wax kaga baran karaan dhinaca kombiyuutarada casriga ee wax looga barto adduunka, iyo labo in la helo xirfado 100% oo qof kasta oo xirfadiisa uu biri ku meel mari karo. marka waxaan leeyahay waxaa nasiib u leh intay ka soo qayb gashay barnaamijka oo nasiib u yeelatay inay barnaamijkan daafurkiisa ay soo ajiibaan. waxaa jiri doona waxyaabo badan oo maanta xataa dada waxay ku faa'iideysan doonaan koorsooyin free ah oo 100% ah. marka ayadana waa laga faa'iideysan doonaa haddii Ilaahay idmo. Aways Maxamuud Julcow, Hon Cable TV, Muqdisho.